raxmo bashiir cabdullaahi waxay ka mid tahay dadka barakacayaasha ah ee ka soo barakacay dhulka gosha ee ay ku dagaalamayaan ciidamada dawladda iyo ururka al-shabaab. raxmo waxay haysataa 2 carruur ah waxayna 3 beri ay u soo lugeynaysaa raxmo iyo carruurteeda deegaankan hadda ay ku nool yihiin. cabsi aad u weyn ayay raxmo iyo intii la socotay ay qabeen xilligii ay u soo socdeen deegaanadan hadda ay ku nool yihiin, waxayna ka baqeen diyaaradaha hawada sare wax ka duqeeya in ay waxyeello soo gaarsiiyaan ayadoo inta badan habeenkii diyaaradahaasi ay wax duqeeyaan. waxay la socotay 100 qoys oo inta badan ay isku meel ka soo barakaceen. baahida dhanka cuntada ee dadkan haysata waxa uga daran hoy la'aan, habeen iyo maalinba ma haystaan wax ay qorraxda iyo dhaxanta ka galaan. qof kasta ayay waajib ku tahay inuu caawiyo dadkan haddii uu wax ku dhaamo ayaa waxaa jawaab ka bixiyay hay'adda Alfa Trust oo dadkan soo gaarsiisay teendhooyin iyo boco ay guri ka dhigtaan. anigoo raxmo bashiir cabdullaahi careesa waxaan ka soo barakacay Mayoondo, waxaan joogaa dalcadda Luglaw. hay'adda maanta Alfa Trust ayaa waxay nagu soo booqatay dalcadda Luglaw, waxay noo keeneen anagoo meel bannaan cidla joogno oo guryo haysanin ayay teendhayaan loo keeneen. maasha Allah aad bay u mahadsan yihiin, walaalaheen oo u mahad celinaynaa. anagoo barakaca Luglaw alxamdulillaah rabbil caalamiin. maanta waxaa noo imaaday Alfa Trust ayaa noo imaaday, waxay noo keeneen waxoogaa bacya iyo teendhooyin oo mataqaanaa alxamdulillaah anagoo meel cidla bannaankan aad arkaysaan ayaan fadhinaa. bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo gudoomiyaha barakaca dhalinyarada Xasan Taraaj oo noo timaaday maanta waxaan u mahad celinaynaa annagoo meelo badan ka soo barakacnay waa ma afarteeda gees ka soo tagnay deeqa ay noo keeneen macnaha hoyga iyo guriyaalka qaar ay noo keeneen dadkii naga baahnaay oo dayacatirnaa oo maanta ay dayacatireen. maanta waxaan helay teendhayaal waalisi anoo bannaan cidla iska fadhiyo oo buush dhaaraamuhu ay ku dhammaadeen ku dhex jiro oo cidla ah oo qorrax ciyaalka ay iga dhammaynayso ayaa teendhayaal ii siiyey. alxamdulillaah aad baa maanta aan ugu mahad celinaynaa hay'addeena. dadkan la gaarsiiyey teendhooyinkan iyo bacahan ayaa hay'adda Alfa Trust u mahad celiyey. waxay noo keeneen waxoogaa bacya iyo teendhooyin oo mataqaanaa alxamdulillaah anagoo meel cidla bannaankan aad arkaysaan ayaan fadhinaa. meesha guri kuma haysano, musqulo male, masaajid male, dugsigi male, waxbarasho kuma hayno, biyo male. mataqaanaa dadkii ka soo barakacaan golweynta ilaa iyo jilib ilaa iyo mataqaanaa sheewaama ilaa iyo maxadan sooya janaac Cabdalla Mayoondo Tingaduud ilaa iyo Tawata dadkii ka soo qaxanahay. hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland mas'uuliyiin ka socday ayaa hay'adda Alfa Trust ku amaanay sida ay uga soo jawaabtay codsiga walaalahooda Soomaaliyeed ee iskugu darmadeen abaaraha iyo sidoo kale dagaalada. mas'uuliyiintan ayaa sheegay in ay si wanaagsan ula shaqayn doonaan hay'adda Alfa Trust ee garab istaagtay dadkan barakacayaasha ah. raxmaan raxiim. waxaan maanta ku faraxsanahay inaan dalcadda Luglaw xerada qaxootiga ee barakacayaasha ee Taif aan ku sugannahay annagoo soo gaarsiinay kaalmo yar oo 30 qoys lagu gargaaray dhinaca hoyga ayaa waxaan u mahad celinaynaa dhalinyaradii isu xilqaantay hay'adda Alfa Trust. Alfa Trust waxaan ka rajaynaynaa inta iyo in ka sii badan inay si dadaal muujiyaan. annaga Jubbaland waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo doonaysa inay gargaar siiso hal qoysna ha ahaadee dadka ku barakacay dalka gudihiisa gaar ahaan Jubbaland. waxaan diyaar u nahay inaan soo dhaweyno kaalmo kasta iyo saacido kasta oo ay la garab taagan yihiin. Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo.